يا الله يا الله وبركاته walaashii mulka xasan maxamed gabar sacuudiyaan oo 25 jir ah waxay guursatay wiil ay isku daa yihiin labada sano ugu horeeyay wax uur ma yeelan sanadkii dambe waxay yeelatay uur waxayna dhashay wiil waxaana loo bixiyay maxamed gabadha shaqaalada ma ahayn gabar muslimad ah maxamed waxay ahaan jirtay macallimad madrasad oo wax ka dhigta dugsiyada hoose ee dalkooda 4 bilood kadib maxamed waxaa loo sheegay inuu geeriyooday wiilkeedii ayadoo loo sheegin sababtii uu u geeriyooday wiilkeeda maxamed way argagaxday laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa samir weydiisatay waqtiga isdabar guray kadib haddana waxay dhashay wiil hal bil markii ka soo wareegatay maxamed waxaa loo sheegay inuu geeriyooday wiilkeedii ayadoon loo sheegin sababtuu u geeriyooday haddana inay tahay qadar aan la hareerin karin qaadimadii waxay isku dayaysaa inay samirsiiso maxamed muddo kadib haddana macallimadii uur ayay yeelatay qaadimadani waxay doonaysaa in la fasaxo maadaama ay hooyadeed xanuunsan tahay macallimadii ayaa waxay ku dhahday waayahay gabar ii keen shaqadana bar si wanaagsan iigu qabato qaadimadii waxay isku dayaysaa inay shaqada barto qaadimada cusub macallimadii iyo qaadimadii hore way israaceen hadiyado badan ayayna u soo iibisay ayadoo ay la yaaban tahay qaadimadii hadda la keenay hadiyadahan aadka u faraha badan ay u soo iibisay macallimada qaadimadii hore waxay isku dayaysaa inay urursato dharkeeda si ay iskugu diyaariso safar macallimadani waxay ka fikiraysaa sidii wax ugu qaban lahayd qaadimada hadda la keenay maadaama tii hore si fiican ay shaqadeeda u gudan jirtay qaadimadii dambe ayaa waxay ku tiri macallimadii ilmo hore miyaad hore u lahayd markaasay ku tiri maxaad ii weydiisay su-aashaas markaasay ku tiri ilmahaagii hore wax sababta u dhinteen miyaa taqaanaa markaasay ku tiri maya ma aqaan markaasay ku tiri qaadimadan markaa imaanaya waxay igu tiri haddii aadan aqoonin sida loo xanaaneeyo ilmaha sideedoo kale iska dil ilmaha anigana taas ma awoodo oo waxaan ahay qof muslin ah macallimadii intay xanaaqday ee aad u carootay ee oosay ayaa waxay bilowday qaadimadii inay disho ninkeeda ayaa loo wacay macallimadii boolis ayaana meesha imaaday macallimadani waa la xiray maadaama ay dhib weyn geysatay labadii qaadimana waxaa la geeyay saldhigga si wax loogu ogaado waxa meeshan ka dhacayo wax xal waa loo waayay laakiin arrinkan macallimadii ayaa waxay go'aan ku gaartay inay iska ilowdo qaadimad dambe ayna soo dhaweyso ilmaheeda cusub adduunka kusoo dhaweyso ayna ilmaheeda iska haysato madrasadana ay ka joogto qisadan waxay ku socotaa gabar walba oo shaqayso ilmahaaga xanaaneyso